haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa Pakistan oo war soo saartay sheegtayna inay rajo ka qabto in mar kale wada hadalladu ay sii socon doonaan. haddaba markaan idin tuso telefishinka Al Jazeera ayaa goordhow sheegay Pakistan waxay sheegtay dhexdhexaadinta inaanay joogsan doonin u dhaxaysa Washington iyo Tehran. haddaba dadaalada waxay sheegeen arrimaha lagu dhexdhexaadinayo waxay muujinayaan in dadaal loogu jiro sidii dhinacyada la isugu soo dhaweyn lahaa Washington iyo Tehran mana joogsan doonto inkastoo arrimaha diblomaasiyaddu ay fashilmeen in mar kale wada hadallo la isugu yimaado. marka hadda waxay leedahay wax qorshe ah oo hadda oo maaragtay inay hadda kulmayaan oo ballana ma jirto, laakiin lagama quusanayo waa la dadaalayaa hawsha waa sii wadaynaa ay leedahay Pakistan marka hadalkan ay soo saartay wuxuu ku xiriiray hadalkii xalay aan sheegnay oo Trump uu yiri 3 maalmood u qabtay Iran. iyaduna waxay leedahay wada hadalka idinkaga fiican intii aad marxalad dagaal iyo mar kale aad isku bilaabi lahaydeen. marka kulay waa talada Pakistan. dhanka kale dadka wax falanqaynaya waxay leeyihiin Pakistan markan waxay joogtaa quus, xaaladda way adkaatay, qolo walba mowqifkeeda ay ku dhigtay. inkastoo Pakistan ay leedahay waa iska suuragal in la isu yimaado, laakiin markii hore sidii ay rajo u qabtay inay dadkan isu yimaadaan oo tanaasul la sameeyo, la wada hadlo, dagaalka loo joojiyo, meeshii waa ku sii yaraataa la leeyahay. marka macnaheedu maxay tahay? waxaan aadaynaa dhanka dagaalka camal ayay ku ballameen. waqtigay bilaaban doonto lama yaqaano, ma 3 bari kadib uu bilaabi doonaa Jaale Trump mise isaga u taallaa hawshaasu. marka halkaas wararka wada hadalka ka soo kordhay waa. dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay Ruushka. magaalo la yiraahdo St. Petersburg ayuu wuxuu kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ruushka. haddaba wasiirka Iran Abbas Araghchi iyo Sergey Lavrov ayaa halkaa wada hadallo ku yeeshay, wuxuuna sidoo kale la kulmayaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. haddaba markaan idin tuso wararka akhbaaraadka sheekada ku saabsan, wakaaladda wararka dalka Iran ee la yiraahdo Mahr waxay sheegtay wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi inuu markaa ka hadlay isagoo Ruushka jooga in codsiyada Mareykanka uu soo bandhigay ee wada hadalka ay yihiin kuwo sababay in wada hadalladu ay fashilmaan. dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda Iran Araghchi waxa uu tagay magaalada la yiraahdo St. Petersburg taasoo uu wada hadallo kula qaadanayo dhigiisa dalkaas iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. magaalada St. Petersburg waa ku raaxaysanayo ninkii Putin ahaa u tagay nimankii daaha gadaashiisa taagnaa waaye Ruushka iyo Shiinaha. Iran iyaga ayaa daaha gadaashiisa u jooga. wixii akhbaaraadu geynaya marka xaaladdu meesha ay marayso wada hadallada. wuxuu yiri wariyaasha intuu meesha joogay su'aal weydiin, wuxuu yiri waxa uu la yimid Mareykanka ayaa fashiliyay wada xaajoodka. macnaha hadiiba heshiis la gaari lahaa Mareykanka kibir iyo qababac uu la yimid, annaguna waxaas ma yeelayno. marka hadda wada xaajoodkaas marka magaalada St. Petersburg iyaduna uga socda wafdiga Iran. nin la yiraahdo al-Alami oo wariye hore ahaan jiray oo nin khabiir oo Washington jooga ayaa wuxuu qoray fariin warbixin uu leeyahay waxayna tusinaysaa awoodeeba ka dhaxashay Iran dagaalkii dhacay. macnaha wuxuu ciwaan uga dhigay manil mustafiid yaa ka faa'iiday dagaalkii 40 maalmood socday. Iran ka faa'iiday sababtoo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa adduunkii oo dhan raadinayaan. Faransiiska, Jarmalka, Ingiriiska, Carabta iskaba dhaaf maanta oo dhan taleefonkay ugu jiraan. Ruushka waa arkaysaan Vladimir Putin leh aniga St. Petersburg hal igu keeno ninkan aniga hala fariisanin. marka haddaadan isa soo saarin oo cidda aadan yac iska dhihin waxba yac iska dhihin marka dambe waa lagu duleysanayaa.
marka meesha wuxuu yiri waxaan ka baranaynaa awood ayay ka dhaxashay Iiraan dagaalka dad waa uga dhinteen madax waa uga dhimatay hanti waa uga baaba'day laakiin sharaf aan shalay loo hayn iyo maartay waxyaabo aan shalay aan maartay agtooda aan la keeni karin hadda maanta saasa loo wadwadaa wasiirka arrimaha dibadda ana la kulmay aniga imaaw aniga meesha marka waxba ka jiro yiri marka sheekada halkaas ay kaga gudbaynaa dhanka kale marka hadalka ninka wariyaha uu taqriirka uu qoray waxa daba socda oo war weyn isaguna sheegay ra'iisul wasaaraha Jarmalka ra'iisul wasaaraha Jarmalka wuxuu yiri markaan qiimeynay xaaladan nimanka Iiraaniyiinta wixii la maleynayay waxaan ahayn ku soo baxay wax iska dhici karaba male macallinka weyn ka qaylisiyeen ma Yurba aadi karta warriba kaan wuxuu yiri meesha waxa ka socda wax sahlan ma hadaba markaan tuso telefishinka Al Jazeera oo warbixin ka qoray sheekadaas waxay yiraahdeen ra'iisul wasaaraha Jarmalka wuxuu sheegay ma fahmi karno dhahay istiraatiijiyada sida uu Mareykanka uga log bixi karo dagaalka Iiraan ilaa hadda lama fahmi karno dhahay ma fahmi karo ninka hadlaya waa ra'iisul wasaaraha Jarmalka ninka la yiraahdo Friedrich Merz ninka la yiraahdo wuxuu dhanka kale sheegay inay jiraan miinooyin ku jira Hormuz dhanka kale wuxuu yiri Iiraaniyiintu way ka awood badan yihiin wixii loo maleynayay Iiraan wuxuu yiri waxay u sameynaysaa wada hadalka qaab aan horay loo arag oo cajiib ah bimaharatin faa'iqa waaye wax aan horay loo aragayba nimanka waxaan maleynayna waxaan hayna ku soo baxay arwa kaas u tag gobolka dhanaas la gubaraawa gantaal waxa ku ridaa shidaalka Iiraan shidaalka khaliijka oo dhan gubarayo war waxay la soo baxeen oo mahara oo faa'iq ah wada hadalka marka loo fariisanayo waad ka yaabiyeen dad dagaalkana waxa loo maleynaya waxa war waji kale u bedeleen oo gobolka macallinka weyn waxaan hadda aniga fahmaynin oo yiri sida uu dhiiqadan uga lug bixi karo aniga ma fahmayo yiri Mareykan inuu ka soo laabanayo meesha waa ra'iisul wasaarihi Jarmalka waa dalka ugu waaweyn reer galbeedka waa dal maartay NATO ku jiro waa dal European Union ka hogaamiya waxa saas u hadla ra'iisul wasaaraha meesha marka maxay ku tusinaysaa nimankan wixii la maleynayay waxaan ahayn inay ku soo baxeen maanta meesha Jarmalka uu ka leeyahay ma fahamsanay sida uu uga soo bixi karo Mareykanka halkan macnaha Mareykanka meesha dagaalkan uu lugaha la galay waa ku dhamaan doona u maleynaa waa macnaha soo uga soo bixi karo ma garanay marka sheekadaas marka iyaduna wararka cajiibka ay soo kordhay ka bitaay waayahay qaybaha kalena barnaamijku waxaanu ku eegaynaa koonfurta Lubnaan waxa ka dhacay saakay ilaa xalay dagaal aad u qaraar ciidanka Israa'iil meela ay ku sugnaayeen ayaa waxa u soo baxay ciidamada commandoska nooca loo yaqaano Ridwana liirada nimanka Xisbullah waxay leeyihiin commandoskooda inta u soo wareegay ayaa xeradii ay deganaayeen oo dhan qablasi halkaas la rabay in lagu qaramsado lagu feento sida lafiyo kale waa meesha lagu baabiyo qayladana tirsadeen waxa soo kala cararay maartay helicopteradii wixii oo dhan dagaalkii waasha waa la isku baabay goor dhow marka dagaalku joogsaday warbaahinta Israa'iil waxay leeyihiin mid kamida diyaaradaheena helicopteriska dagaalka ka qayb galay gantaala la helay oo Xisbullah waliba ay soo rid wax la qarina meeshan magaalaan hadaba marka aan tuso wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay saacadihii la soo dhaafay sheekadan warbaahinta Israa'iil ayaa goor dhow xaqiijisay in la soo dhaawacay ee diyaarad helicoptera oo lala soo helay rasaas ay soo rideen Xisbullah koonfurta Lubnaan telefishinka la yiraahdo 12 ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa xaqiijiyay in diyaarad helicopter oo Israa'iil ay leedahay ay waxyeelo xun ka soo gaartay rasaas ay soo rideen Xisbullah maray isku dayeysay diyaaradaasu
inay badbaadiso ciidamo ku sugnaa koonfurta Lubnaan mawjada gurmaday u tageen meesha askartii shalayna maxay yiraahdeen midana la ka dilay 6 waana la ka dhaawacay waa meesha marka halkaan nimanka Xisbullah la yiraahdo waxay yiraahdeen adeeryaalow meeshan xabada meeshan nimankan looga saari karaa dhulkan ay soo galeen koonfurta Lubnaan oo ay rabaan Israa'iil al-Kubra madax badan qalalaayeen Israa'iisha weyn iyo dhulaan qabsara meeshan madax badan waa inuu qalalaayeen haddaba qaybahan aalaaba waxaynu ku soo qaadanaa wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay intaynu barnaamijka ku jirnay goordhow weeraro culus ayay qaaday Israa'iil iyadoo sheegtay inay ku beegsatay goobo ay ku sugnaayeen Xisbullah koonfurta Lubnaan gaaraan deegaanka la yiraahdo al-Biqaa meesha la yiraahdo ayay weerareen dhanka kalena waxa la sheegayaa wakaalada wararka ee Reuters iyaduna waxay qoraysaa 24 saac ee la soo dhaafay 7 markab inay ka gudbeen marinbiyoodka Hormuz kuwaasoo Iiraan ay fasaxday halka kuwa kale oo Iiraan ay leedahayna la sheegay inay dib Mareykanka ugu celiyeen meelihii ay ka yimaadeen oo macnaha dekadihiin ku laabtay inay yiraahdeen marka xaaladu Hormuz iyaduna wararkaas ayaa ka soo kordhay saakay arinta Xisbullah iyo Israa'iilna way qasatahay xaalku marka halkaas ayuu maraya wararka ayaa ugu waaweynaa wixii soo dhacay tan iyo intaynu kala maqnayn like garay oo share garay barnaamijka haddaad cusub tahay subscribe-ka ka iloobi YouTube-ka Facebook-ka follow garay inta aan mar kale barnaamijkan lamida ku kulmayno asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan